soo dhawaada taageerayaasha Manchester United meel kastoo aad joogtaan. Muuqaalkan waxaan ku falanqayn doonaa ciyaarta aad ku xiisaha u leh ee u dhexeeya kooxda Manchester United iyo Brighton Hove Albion ee maalinta Sabtida la dheeli doono. Kulamo waaweyn xiise leh ayaa Premier League la ciyaari doonaa. Waxaa kamid ah kulanka United iyo Brighton oo isha lagu hayo. Muuqaalka waxyaalo badan ayaan kaga hadli doonaa. Waxaan ku falanqayn doonaa kooxda iyo shaxda ay macquul ka tahay inuu Macallin Erik ten Hag ku soo galo, maqnaanshaha Anthony iyo cidda ay tahay in booskiisa ay dheesho. Waxaa laga filan karo Amrabat iyo inuu kusoo bilaabo doono iyo in kale iyo sheekooyin badan oo xiiso leh iyo qaabka ay tahay inaan u dheelino haddii aan rabno inaan Brighton natiijo ka helno. Soo dhawaada. Saa ognahay saaxiibayaal, taageerayaasha United aan nahay, Brighton waa koox aan ku qabno. Saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League way naga badiyeen sanadkii hore home iyo away noo garaaceen inkastoo kulankii semifinalka aan ka badin FA Cup-ka. Haddana waa koox dhib badan. Sanadkaana bariga cajiib ay ku jiraan. 12 gool ayay dhaliyeen 4 kulan dheelin taasoo ka dhigan inay kulan walba 3 gool dhaliyeen. Sidaas la mid ah maaragtay sanadahan mar kale sanadkan waxay muujinayaan inay yihiin koox kamid ah kooxaha maaragtay top 6 ka loo yaqaan. Haddaba si aan ciyaarta natiijo u helno, Macallin Erik ten Hag wuxuu u baahan yahay inuu wax ka barto ciyaarihii hore kooxdan la dheelnay. Kooxdan waa koox maaragtay tactic iyo kubad ciyaaris markii la yiraahdo kooxaha ugu wanaagsan Europe ayaa lagu tilmaami karaa. Kooxdan macallin aan caadi ahayn ayay wataan Desabi inkastoo koox waaweyn maamul haddana waa nin aan inaba caadi ahayn tacticadiisa qaabka uu dheelo philosophy-giisa waa nin maaragtay isha lagu haayo macallinka xiga ee Pep Guardiola soo socday xiga ee maaragtay in lagu tilmaami karo way. Haddaba shaxdee ayaa la filayaa inuu Macallin Erik ten Hag ku soo galo. Anthony saa ogtihi waa maqan yahay, sidaas la mid ah Sancho kulanka ma dheeli doono. Wararka ugu dambeeya soo baxay waxay sheegayaan in United ay ka ganaxday ninkan inuu kooxda safka hore la tababarto oo kadib isku dhici asaga iyo Erik ten Hag marka kulankan ma dheeli doono. Kulankan anigu haddaan ka hadlo shaxda ila haboon in Macallin Erik ten Hag uu ku soo galo, Balestri ayaan garabka ku soo bilaabi lahay maxaa la yiraahdaa midigta, Rashford garabka bidix, Højlund ayaa weer ku soo bilaabo doona. Dhaxda Bruno Fernandes ayaan barteenkiisa dheelsi lahay, Casemiro, Amrabat ayaan maaragtay gaashaan uga dhigi lahaa Casemiro la weheli lahay. Sidaas la mid ah waxaa u badan tahay in difaaca oo ay ku soo wada bilaawdaan Lindelof iyo Martinez oo la rajeynayo inuu dhaawac ka soo laabto. Garbahana waxaa dheeli doona difaaca Dalot iyo ninka la yiraahdo Wan-Bissaka. Shaxdan haddaan wax yar ka niraahno, Dalot iyo Wan-Bissaka runtii ciyaartii Arsenal bandhigaan caadi ahayn soo bandhigeen. Mar walba Wan-Bissaka waa shaqadiisa inuu maaragtay waana wax laga filayo inuu difaac fiican sameeyo, laakiin Dalot ciyaaran caadi ahayn soo bandhigay inkastoo ciyaartana la ka badiyay haddana bandhigiisu ma xumeyn sida uu la dhiilgareeyay ninka la yiraahdo Saka oo runtii ciyaaryahan dhib badan oo midig iyo bidix iyo meel walba aadayo si aan caadi ahayn ayay ahayd. Marka kulanka inuu mar kale kusoo bilaawdo ayaan rajeynayaa. Sidaas la mid ah Martinez ayaan rajeynayaa inuu isagana soo laabto maxaa yeelay waxaa loogu wacay internationalka xulkiisa haddii uusan diyaar ahayn ama uusan dhaawac ahaan uusan ciyaari karin uma aysan wici lahayn inkastoo uusan dheelin haddana waxaan rajeynayaa inuu kulankan uu fit yahay uu soo bilaabo doono. haddii uusan fit ahayn waxaa laga yaabaa inaan aragno Harry Maguire taasoo runtii ah wax aan jeclaan lahayn inaan arko mar kale. Dhaxda Amrabat ayaa kulankan debut-giisa inuu sameeyo u badan tahay, mana jiro runtii kulan ka haboon ee uu dheeli lahaa marka la fiirsho intensity-ga iyo difaac ahaan waxa aan dhaxda uga baahannahay. haddii uusan Amrabat dheelin halis weyn ayaan ku jirnaa ayaan runtii aaminsanahay anigu maxaa yeelay sanadkan bandhiga ay koox soo bandhigtay ma ahan mid wanaagsan waxaana sababta ugu weyn ay tahay in qadka dhexe uusan gaashaan ka jirin. Casemiro kaligiisa meesha lagu daayay sheekadan oo Bruno Fernandes iyo inay isla dheelaan ninka la yiraahdo Mount iyaduna ma aysan shaqeyn. waxaan moodaa in qadka naga dhexe uu runtii aad u furan yahay. waxaan u baahannahay Amrabat inuu kulankan dheelo si aan natiijo u helno. inuu fid yahay ayaan rajeynayaa. haddii uu kulankan dheelana runtii wax weyn ayaan ka filayaa. waxay ka mid tahay waxyaalaha xiisaha leh ee isbuucan Aisha ku hayo. ninkan haddaan waxaan ka niraahdo waxa ay United ka fili karaan iyo taageerayaasheedu waa nin runtii saan aragnaba World Cup-kii aan ku daawanay difaac ahaan aan inaba caadi ahayn. Number 6 shaqo badan, intensity fiican leh, maaragtay xuurta leh oo haddii maaragtay ciyaartu ay 100 daqiiqo xitaa la dheelo aan laga dareemeyn, fit ah sidaas si lamid ah haddii aan fiirno wixii uu Fiorentina kusoo bandhigay waa nin
technical ahaan aad u fiican kubad haysashadiisa baasidiisa baasaskiisa markaad fiirisid statskoodana ay aad u fiican yihiin oo baasaska u dhammaystiray baasaska hor u socod kale uu sameeyey wax walba marka ninkan waa nin maaha keliya xagga difaaca qadka dhex naga caawin doona laakiin sidaas la mid ah waa nin weerar ka qayb qaadan doono oo kubadaha maaragtay xilli habboon iyo waqti habboon Bruno Fernandes gaarsiin doona taasoo ka dhigan in weeraryahanada ay kubaddu si fiican ama maaragtay waqti habboon ay gaari doonto marka Amrabat ishaan ku haynaa kulankan waxa xiiso leh cidda dheeli doonta garabka Anthony in la arko macallin Erik Ten Hag waxa macquula inuu kulankan oo sidii sanadkii hore ma aragnay oo Bruno Fernandes garabkaas dheelsiiyo asagoo markaas qadka dhex nabarteenka dheelsii kara Eriksen taas iyada laftu way shaqay kartaa laakiin marka la fiirsho kulankan iyo kooxdan la dheelin inay Brighton tahay aniga ma rabo inaan arko wax Eriksen ku saabsan haddii aan ciyaarta badinayno 80 meelaas la maraayo rabo inaan kubadda joojino controlno laga yaabo laakiin ciyaarta in inta lagu soo bilaabo Eriksen aniga runtii aad ayaan uga soo horjeedaa mana jeclaan lahayn inaan arko laakiin wax ay macquul tahay inuu Eriksen sameeyo waxaan leeyahay Erik Ten Hag uu sameeyo sanadkii hore ayaan inuu Bruno garabkaas dheelsiiyey Bruno garabkaas ma jecla marka uu dheelina bandhig fiican soo bandhigo marka ciyaaryahan ugu fiican kooxdaada inaad positionkii oo ugu fiicnaa dheeli lahaa ka bedesho position uusan dheeli karin aad dheelsiid wax fiican maana waana wax badan inta badan uu ku celceliyo Erik Ten Hag aan ku jeclaysan laakiin waan arki doonaa Balestri ayaa aniga jeclaan lahaa in kulankan garabkaas la dheelsiiyo waa cunug da'yar ah waqti lama siin xulkiisa maaragtay wuu u dheelaa si regular ah inkastoosan maaragtay wax weyn hadda ilaa soo bandhigin laakiin waa nin direct ah garabka maaragtay aadayo kubadda soo koroosi karo gaar ahaan marka la fiirsho in maaragtay hadda Hoyland oo joogo weeryahan haysano waxa u baahan cid maaragtay garbaha kubadda keenta marka Balestri inay arko ayaan kulankan jeclaan lahay si loo arko in ninkan uu yahay nin Premier League maaragtay fursadiisa qaadan karo iyo inuu yahay ciyaaryahan iska da'yar oo weli maaragtay championship iyo meelaas ku habboon marka waa fursadiisii Balestri hadduu kulankan dheelina ilama aha inuu maaragtay United uu maaragtay sii joogi doono ama uu maaragtay macallin Erik Ten Hag oo fursad kale sii doono maxaa yeelay mar kale fursad la sii lahaa ma jirta Sancho waa maqan yahay Anthony waa maqan yahay Balestri waa optionka ugu fiican Hoyland ayaa weerarka dheeli doono runtii sheeko kale aad u xiiso badan ciyaarta waa ciyaar xiiso leh laakiin waxa aan maaragtay ciyaarta xiiso u sii yeelay waxay tahay ciyaarnada aan filayn inay dheelaan iyo waxa maaragtay ciyaarnada cusub aan ka filayn oo arki doono oo ish lagu hayo ninkan yarta ahayd uu dheelay kulankii Arsenal wax cajiib ayuu soo bandhigay marka qaarna haddii aadan qof maaragtay kubadda cagta si detail u daawada aadan ahayn waxa laga yaabaa in istiraahad striker shaqadiisu waa inuu goolo dhaliyo kaliya laakiin reality waxay tahay striker shaqadiisu inuu goolo dhaliyo kaliya waa ka badan tahay waxaana aragnay inta yarta ahayd oo Hoyland uu joogay oo maaragtay Arsenal la dheelay marka la fiirsho kubadda haysashadiisa soo kubadda maaragtay u joojinayo haddii aadan kubadda gadaal kasoo dhisi karin maxaa la yiraahdaa waxa u baahan tahay inaad kubadda iska soo bixid kubadda marka iska soo bixidna waxa u baahan tahay striker inaad haysto physical ahaan iyo technical ahaan kubadda ku jooji karo oo ciyaarnada kale maaragtay xerada garoonka soo gali kara si ay garbaha fursada ciyaarna garbaha ay fursado u helaan haddii aadan striker haysan kubadda waa soo bixinay mar walbana aday kugu soo laabanay problemka ugu weyn ee United sanadihii u dambeeyay haysana taasaa ka mid ah Tony Martial waa ninkaas ka hurda Rashford haba sheegay haddii weerar dheelsiiyo marka Hoyland iyo waxa uu soo bandhigo iyo maaragtay sida uu kooxdan wax uga bedelo runtii aad ayaa ugu xiiso qabaa waana wax maaragtay ish lagu hay doono Onana ayaa asaguna kulankan useful noqon doona waxa ognahay in Brighton ay tahay koox jecel inay kubadda haysato inay kubadda gadaal ka soo dhisto maaragtay waxaan u baahanahay inaan kubadda la qaybsano si aan natiijo u helno waxaan u baahanahay in aan kalsooni muujino aan kubadda gadaal uga soo dhisi karno isla markaasna aan maaragtay haddii ayaga aad frustrate gareedid oo ayagu mar walba waxay la qabsadeen inay kubadda haystaan inay kubadda maaragtay ayagu maamulaan laakiin haddii aad kubadda la qaybsatid waxa laga yaabaa inaad fursad ka hesho waa koox gool laga dhali karo mar walba oo ayaga meesha ay ugu xoogan yihiin maaha difaaca meesha ugu xoogan yihiin waa weerarka marka waxaan u baahanahay inaan kubadda haysano kulankii Arsenal ayaan aragnay waxa uu Onana uu sameyn karo contributionkiisa caadi ma ahayn sida uu kubadda u dajinayay kooxda kale inaad invite garaysid oo tiraahdo waatan kubadda ana haystay kaala iga qaata isla markaasna gadaashooda fursad ka abuurtid marka kulan aad u xiiso badan weeye taageerayaasha Manchester United waxaan rajeynayaa inaan maaragtay kulankaas badi doono guul ayaan rajeynayaa waan arki doonaa waxa macallin Erik Ten Hag uu ku soo bilaabo iyo waxa ay soo bandhigaan Amrabat iyo Hoyland iyo waxa ciyaartu ku dhamaato aniga hadaan ciyaarta saadaaliyo kulankan waa kulan gool badan la iska dhali doono si aniga ila tahay Brighton waa koox maaragtay inkastoo markii sanadii hore ay gool dhalinta dib ku qabeen haddana sanadkan runtii
nin yaroo 100 milyan la kale ayaa usoo baxay yarkan Ferguson goolal badan ayay ilaa hadda farqeen inay gool naga dhali doonaan waa aaminsanahay aniga laakiin waxaan aaminsanahay in anagana ka dhali doono maadaama aan gurigeena ku dheelayno Amrabat haddii uu kusoo bilowdo inaan ka awood badan aan aaminsanahay 3-1 ayaan ku saadaaliyey saadaashiina maaragtay hoos igula wadaaga waana ku mahadsantihin daawashadiina muuqaalka like saara channelkana subscribe ka saara channelkan waxaan soo geli doonaa wararka iyo falanqeymaha la xiriira kooxda Manchester United si gaar ah si haddii aad tahay taageere United aad fursad aad u heshid wararkii iyo sheekooyinka ugu dambeeya kooxdaada nagu soo bir waana mahadsantihin asalaamu calaykum